soo dhawaada walaalayaal. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa walaalkiina maskiinka ah Sharif Muxsin Abaaqarow. walaalayaal, arrimaha xasaasi baan ka hadlaynaa. soo dhawaada walaalayaal. arrimaha xasaasi ah Itoobiya oo dhan baa qasan, inaga jigjigo baan ku haynaa. maanta caasimadii Addis Ababa Soomaalidii cabsi weyn baa xataa hoteeladii ka bixi laayihiin, guriyihii ka bixi laayihiin, waxbay soo gadi laayihiin. nimankan oromada ay wadanka qabsaday dad maamul yaqaana ma aha, laakiin idinku waxda u aragtaan wax qalada. waa dad uu shacabka reer ogaadeen iyo ilaahay usoo direen loo hiilinayo. waan goosanaynaa, saasaan ku goosana, waan goosanaynaa maaha. anigu waxa weeyaan dib dambe ogama maqli kara Cabdi Maxamed Cumar asagoo leh dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. weli waa inuu hadlaa, si adag u hadlaa. waa inuu shacabka hubka u qaybiyaa. gobolkani maanta Cabdi Maxamed Cumar taageera haysataa, shacabkaadi waa ku taageeray. ururkii soo halgamayay onalaf baa ku taageeray. waa inaad waan goosanay waa inaad ku dhawaaqdo. anu ma fahmin, shir baa la rabay in la qabto, weerar baa la soo qaaday. weerarkii baan shirkii ku joojinayna, aan ku goosanayna. anu ma aqbalayo. waa inaad qabatid shir degdega ya. jabhadda waduurka markay ku jirtay go-aamadeeda waxay kasoo saaraysay buuraha. adigu waa caasimad dhan baad joogtaay. waa inaana maqashiiso codka annaga waxaan u baahannahay, goosashaan u baahannahay. Itoobiya ma rabno. intaa madaxweynaha dowlad deegaanka oo ninka ugu taageero badnaa inaan aniga ahay ya, madaxweynaha ogaadeynaya ato Cabdi Maxamed Cumar Cabdi Janna xafidullah, ninka ugu taageero badnaa inaan ahay, haddana ugu jecel. waan goosanay. tan labaad waxaan rabaa inaan idin sheego oromo boobi wadaa. marka inaan oromo ku wareegeysano maaha. inagu haddaan nahay Soomaalida reer ogaadeen iyo Itoobiya waa inay istaagnaan. ereyga oromo inaan reer waxba aan ku wareegano maaha. Itoobiya waa Itoobiya. waan goosanaynaa. Itoobiya awoodeedii waxay iskugu geysay shidaalkeeni ciidamadii federaalka Itoobiya oo dhan waxaa la iskugu geeyay shidaalkeeni. inagu meelaha aan boodboodno miyaysan habbooneen inaan halganka eega bilowno oo ku weerarno meesha shidaalka, inaan ku weerarno ya, inaan ku leyno, inaan ku gumaadno Soomaali. marka waxaan leeyahay shidaalkii uu sheegay barnaamijka dalka Itoobiya, laba jaar oo walaalaan nahay, deegaan ee walaalo manihiin, laba dowladood oo jaar aan nahay, oo weli cadaawad xun istusay oon marnaba isaaminaynin. Itoobiya iyo ogaadeen, dowladda ogaadeen ya, DDS yani haddaan maqlo bes alla og Cabdi Maxamed Cumar shacabka la dagaali oo annaga kula dagaalameen oo madaxun baa ku dambeynaysa. waan ku jecel lahay, ku dhawaaq inaan goosanay. goosasho bishaan ayaana deeq, wax kaloona deeq ma laha. Itoobiya ma nihin mana noqon karno. nimanka onalef ee walaalaheena waa iyo duqa adeerkeena hay sungub ya. sungub baan weligii hilmaameen. war axmaara saa dhahan oo sidan dhahan waan isma afgaranaynu yiri. wakaa meelaha dadka walaalihii koonfurta Soomaaliya xamar ee kolba dhakhtar u geynayaan Turkiga. muxuu ku nacay dalka? gumaysigu ku nacay. adeer annaga gumaysi dambe ma yeeleyno, ma aqbaleen, ma ogolin. xalay waxaa la xasuuqay shacabka reer ogaadeen ee qaar ka mid ya. reetulu guleed baa xalay la xasuuqay, nag laga dhigay nag ya. isir nacaybka oromo maaha, waa Itoobiya oo dhan. oromo no oromo waa Itoobiya oo dhan. adeer marka shidaalkeena ma haysan karaan, laakiin tabartoodii awoodoodii bay iskugu geeyeen. waana guuleysanaynaa insha Allah. laakiin weli hashumaankii gadaymo masaar bay laqday. weli waxaan la ahay codkii odayaasha war meesha dagaalka ka dhacay maxay tahay onelaf iyadoo cir iyo dhul laga weerarayo iyo go-aankeeda kasoo saaraysa buuraha
يا الطريقة وضعت تنمقشية إنا قوصني نمقشية إلا حتى ما هي يعني ما هي هشيسي وحتى كم قتين إذا كيدين تلا أنا ومه إنه قوش صارنا إثيوبيا مني إثيوبيا منهن دولة راح بنا يا marka walaalayaal halgan hadduu bilowday halgan wixii Soomaaliya walaalaheena nacaawinayana waa iyaga qurba joogta waxa lagu baaqayaa inaan kulligeen tagno halkaasna looga baahan yahay Facebook-na loogama baahan kii Ethiopia dabaqoodii u ah oo jaajuus ah ha soo raaco ayaga ha la soo safto ninkii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa difaacanaya khayraadkiisana ha tago dalka inaan tagno weeyaan ha taga maaha waa inaan tagno Facebook waxa ma taray ya waxaan leeyahay raggii geesiyaashaha gabdhihii geesiyaashaha ee ku shahiiday weerarkii qawanaa ee lagu soo qaaday caasimadda Ogaadeen Jigjiga ama caasimadda Soomaali galbeed waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun shahiid ka saxda ee waka janna galyaal weey ilaahay qabrigooda ha u nuuri marka walaalayaal ha laga soo tago ya deegaankeeni war taxi baad meelaha la orday oo wareer war dhul baad dhaqaysa war xafaayad baa habar uraysa ka bedelaysa oday uray war Yurub shaqo ku meeysay nolol ku meeysay ya kaale shidaalkaada iyo khayraadkaada difaaco haddaad difaaco weysid rag bad hadhow xafaayadda oramo iyo axmaare iyo odayaal waaweyn ya oo Ethiopian yaad xafaayadda ka bedelay deegaankaada dhexdiisa haddaad difaacan meesha ayaga ay ku hel lahayn dadka waaweyn kuwa anagu shaqaale xataa isku ma ogolin naab Ethiopia halin Ethiopian xataa inuu shidaalkayga iyo wadankayga shaqaale ka noqdo ma ogolin sababta waxa naga dhaxeeyo isir nacayb adduunka dad waxay ku dhigo oramo intaan oramo leenahay ma rabna inaan xiroono ma rabna inaan xiroono Ethiopia waa Ethiopia marka walaalayaal madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar CMC Cabdi Janno xafidullah waxaan leeyahay waa inaad warkaada cadaysid waa inaad cadaysid codkaada inaad maqashiiso anagu goosasho waxaan ka ahayd oo na deeqdo mara goosashaan rabnaa ma rabna Ethiopia wax la dhaho ma jirto Ethiopia waxba nagama dhaxayo wanaag ma jiro maanta oo dhan inaan ku wareegaysano xisbiga shacabka maxaa BRF kuma jirno calaacal barraq adeero khayraadkaada la iskugu tago Ethiopia oo dhan ya meel la kala istaago يا الله يا دولكي شنالك لا قضي كارها صعدة BM كصعدة يا وذي عيسى بركة وين ودي الجرودان هلجن وين عم أكترنا ماشان وين أكترنا ولا ليا شو اسم ملحق ضلكين ولا بوبي يا بركة marka meesha waa inaan ka tagno caasimada gobolka Ogaadeen Jigjiga waxa weeyaan waan xorun walaalayaal xornimo qaadanay xornimo waa inaan goosanaa Ethiopia wax la ma jiro Ethiopia ma rabno Ethiopia abiy isir baa isku dhacay marka walaalayaal halganka ka qayb qaata hogaamiyaha aragtida
taleefon baa soo galay marka waxa weeyaan kuwa xanuunsan ilaahay caafiyo maanta oo dhan afar iyo laasa qabiil ay flagaadeeyo waalid aflagaadeeyo ilaahay soo hadiye maanta kuwaas oo kale anagu ma jawaabina anaga halgan baa ku jirnaa inaan ka goosano Ethiopia waan u baahanahay uma baahnin inaan nin xanuunsan aan maanta oo dhan aflagaadeeno ama aan cayno uma baahnin CMC عبد الشرنا حفظ الله شعب كيسات شعل صومالوين وربا شعل مركا لا شعر سيا كعب مدحوينها قبل كأوغارين عند الصومالي قلبين يا مركا بود أحمد تريا نكي أورما صورها كوا صورها أورما ولا لا إلا حد وحتى الله يستاهل حكومة أي قعدت قاعد كل كتاب الله يستاهل لك آمنين هاي لك كلام يا هذا رد هذه الشيء ولا لا يا هي كون صرع إذا كان صرع لما ما أنت ركب لا بسيا إنك أنت كويس حكومة يا صرع marka waliyo Xuseen 10 jeer baan ku soo qabtay ma aqaan qadka ka xun marka walaalayaal shidaalkeeni السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو أباقر هو نوهي ولا لا آدي آد بنكو سلام يا نين غالية باتهاي حلقما باتهاي وحاوي نينكو ضيشان بدن باتهاي waxaan leeyahay insha Allah ta'ala halka kaga sii wada adigu horta waa marka koobaad صح aad baa mahadsan marka labaad akhil kariim waxa weeye maanta deegaankeenu xilli uu ka fiican yahay ma ay jirto ilaahay baana ku mahadsan ma sha Allah iyadoo maanta dawlad deegaankii Soomaalida ciidamadii liyu booliiska ahaa iyo jabhadii wadaniga xoreynta ogaadeen iyo ONLF ay gacmaha is haystaan ay garteen in ma garanaysaay wadanka dantiisa laga shaqeeyo waxa iyaga u dhaxeeyana meel la iska dhigo danta guudna laga wada shaqeeyo arrinkaas wuxuu yahay arrin aad iyo aad loogu farxo صح wax inaga qaadi kara waxna ma ay jiraan haddii ma garanaysaay aynu sidaa u midaysannahay oo runtii markii aad eegto dadka dareenkiisa gobolada iyo degmooyinka ay intooda badan 95% la dhihi kara maanta waa la midaysan yahay haddii midnimadeena aan sii xoojino cid wax inaga qaadi karta malaha walaa Oromo walaa Tigray walaa cid kasta baan wax inaga qaadi karin walaal صح marka waxaan leeyahay shacabka deegaanka midooba gacmaha isqabsada qof walba meeshuu joogo halgan iyo in ma garanaysaa wadankeena aayihiisa aan ka tashano qof walba meeshuu joogo ha loo soo diyaar garoobo nimankan xunxunka ah qurunka ah dirir dhaba fadhiyana dee iyaga Oromadii ay isku qorqorayeen baaba 10 u dhigtay shalay صح iyaga intaas aaba inaga filan صح barbaarta ku gahay kuma laha Cabdirashiid Cali Shucaaciyo maanta haddii doorasho xaq ah la qaban lahaa oo dadka deegaanku ay doorasho samayn lahaayeen waa ay ku guul daraysan lahaayeen hal cod ma is heleen adiga Abaaqaro maanta hadda isa soo sharaxdo codka aad hesho madaxweyne waad ku guulaysan lahayd laakiin maanta ina Cali Shucaac cid u matala male saaxib صح marka hal midoobaan leenahay waxa qurunka ana dee dadka ha soo raacaan baan leenahay qolada dir dhaba fadhida صح marka dee waan ku salaamayaa saaxib intaan baan dhihi lahaa insha Allah aad baad u mahadsan tahay halgamaa waan ku salaamayaa waxaan la ogaadeen iyo wax xorowday guul iyo gobonnimo walaalayaal waxa weeye maanta waanu israacnay alxamdulilah soo dhawow ogash soo dhawow boqorada dhammaantiin soo dhawaada walaalayaal halganka wuu soconayaa halyey aanu ku aaminsannahay shidaalka annaga iyo kheyraadka annaga iyo sidii Ethiopia loola dagaalami lahaa xeeladeeda dhan siyaasadeed dhan kasta yaqaano waa hogaamiyaha aragtida dheer CMC Cabdi Janno xafidullah
marka waxaan leeyahay ururka onelef iyo cabdi maxamed cumar waa hal ninkii u malayn lahaayo inay maanta intii la kala qaybiyo yah awoodda ugu weyn oo cabdi maxamed cumar haysta awoodda labaad waa onelef runtaa ii sheegayaa marka waa hal weeyaan dalkana waa uu xoroobay gobolkaana ogaadheen ama soomaali galbeed anigu uma baahni wax la dhaho soomaali galbeed ogaadheen baan lahaa gobolka iyo ogaadheen waan xoroonay cabdi maxamed cumar cabdi janno c m c waa geesi laakiin garaad kulmiya waa geesi salaadeynta anaga ugaasyadaana iyo madaxweynahana waxaan uga fadhinaa ku dhawaaqidda madax banaanida gobolka ogaadheen oo uma fadhiyey kililka soomaalida iyo etoobiya dambe may yasmac ma jiro marka maanta shacabkaadiba cabdi maxamed cumar waxa weeye nin kasta horta inay nin kasta wuxuu keensada maxaa la yidhi nin kasta mirahu geedku beertuu miro ka gurta halyeyga aragtida dheer waa kaa idin dhihi jiray xabadda kusoo socotaa isku dhigaya ma keligeyba noqotay yah shacabkina ogaadeenayo dhan baa isku dhigaya xabaddii hogaamiyaha aragtida dheer kusoo socota marka qabiilna walaalayaal wax ma tarayo ree hebel inaani maanta qabiil caayo ana qabiilkayga la caayo in qabiil kale oo soomaaliyeed la caayo wax ma tarayo soomaali waa walaalo cadowgeedna waa etoobiya cadow kale online ha ma jiro cadowgeedna waa etoobiya cadowgeedna waa etoobiya cadowgeedna waa etoobiya cadowgeedna waa etoobiya marka waxaa loo baahan yahay awoodeen baan ka maqli jiray axmaaro makaaray saarnaan shidaalkeennii waxay iskugu geysay waxay awood iyo tabar ay lahayd laakiin ma fadhin karaan afar wiiloo gashay ku filanta qaabka loo galana soomaali baa nahay ilaahay baana bare ma oromo mise axmaaro mise tigre mise miyaa fadhin karo afar wiil oo waxaan ognahay sameeyo oo afar jiha ka gashay ayaa cararayaan tilaabana ma qaadi karaan kii kaadi dhahaa xabad baan futada ka gelinaynaa miinaan u xiraynaa makadeed bay ku jirayaan waa been ma joogi karaan waa been marka adeer waan xorownay dhulka innagaa leh halganka wuu soconayaa halganka ma istaagayo marka codka inayna maqashiyaan baan u baahannahay anuu hadda taleefon baan rabaa inaan u diro xukuumadda idama fahmin baan rabaa inaan dhaho yah idama fahmin wax loo haysto waxa afka loo haysto ma fahmin haddii waan etoobiya idiin socoto na qiyaamaysaan waadna qiyaanteen ma rabno etoobiya annaga ma rabno etoobiya ma rabno inay kolba marka dambe uraagana gumaysan haddana uraagana gumaysan weligeen ma qolaan u ninkinaynaa ma gumaysi baan ku jiraynaa dhimanay ma rabno maanta waa soo taaganay waraabada qobe baa la yidhi dirirtiisa loo tagaa yah waraabada ale dirirtiisa loo tagaa adeer ma rabno gumaysi dambe gobolka ogaadhen wuu xoroobay calanka onelef iyo calanka soomaaliya meesha ka taagan waa sax waa xaq lagama dejin karo waa wacayaa haddaan ka maqlo dowlad deegaanka soomaaliya iyo etoobiya waa leefkayga dambe waxaad ku arki doontaan wax aan marnaba caadi ahayn ma rabo etoobiya ma nihin ninkii etoobiya dhahayo etoobiyaan hal etoobiya cabdi axmed cumar hal bal in anigu bal waxaa nalaga dhaadhicin doona yaa hogaamiyaha anaga aragtida dheer etoobiya see ku noqonaa tan maanta nagu dhacday waa aragnaaye yah see etoobiya ku noqonaa yaa naga dhaadhicin kara adeero soomaali baa nahay isma qaadan karto etoobiya iyo soomaaliya wax isgeli karana maahan maanta waa aragtaa qowmiyad kastoo qabsato waxay sameynayso orama ugu daran adduunka ilaahi kuwan afka luuqadda xataa qoritaanka siyaad barre ayaa qoray af oramo waxay maanta luuqadooda ay ku hadasho soomaali abow waa tiin baa yiriba maba tiin dowlad kale innagaa oramo haysanaba waa soomaali abow siyaad barre wala geesi baa lidax allah u naxariisto soomaali abow waaba tiin bir waa maxay etoobiyaankii waxa sheegaysaan ilaahay kasiko anaaba idin leh tartiib
ya marka haliyey kasta Soomaali ayaa lugta qabto ayaga dilo ayaga xiro marka Cabdiraxmaan Cumar oo haliyey baa tahay waan ku jecelnahay maanta dal iyo dibad meel kasta Soomaali weyn shanta Soomaaliyeed baa laga jecel yahay ya inta uu dad qabto ayada u taala laakiin geesi inaad tahay aan caasimaddiisa meel la oga bixin caasimaddiisa dhex lugeynayo saaka madaxweynaha gobolka Ogaadeen wuxuu dhex lugeynaya caasimadda gobolka Ogaadeen ee Jigjiga marka walaalayaal waa maxalleegii shaarkii iyo loofkii waa yaraysa Ogaadeen markaan dhahay bal Soomaali galbeed madaxweynaha gobolka Soomaali galbeed madaxweynaha gobolka Ogaadeen walaalayaal isma qaban karo Soomaali galbeed mindhanaagis madaxweynaha gobolka Ogaadeen anaga u bixin taariikhda caalamka laga dhahaa adeer anagu maana bixinin meesha aadid hadaad google gashi kililka shanaad waxa la dhahaa iyo kililaamis waxa la dhahaa marma iyo Ogaadeen gobolka ismaamulka Ogaadeniya ya dowladda Ogaadeniya ومدحوينها كيها وقاميها عركتها دير عبد الجنة حفظ الله CMC وقاميها عركتها دير عبدي وحنو كاغبا حنهي مدنه وحنو كاغبا حنهي وانو كجعلنهي وان كدفاعني إن أدنا نوغو دواقدان عدك عن مقالله إنان قوصاني وحنو باقي قرب جوجتا رجع قبلها عاد شوغان هدي ربان إنكستو إليتريا قبلها هدي رجع اسكسي ودقالبان جيجيغان اسكسي لوغا دقالبان gabdhaha kaaraha isku dhigay kaaraha maray dadka laasi gabdhaha ku jiray marka walaalayaal halkan ka ogaadeen iyo uu bilowday waxa weeyaan waa inaan dalkeena aan u dhimanaa oo dadkeena u dhimanaa maanta meel fiican bay maraysaa xaaladdu meel fiican bay maraysaa laakiin madaxweynaha gobolka Ogaadeen Cabdiraxmaan Cumar Cabdi Janno CMC waxa nooga baahanaa wali codka maana maqlin waan goosanay baan u baahanahay inaan maqlo wax kala oo dadka anigi baa la xasuuqay kuwa kala la xasuuqay ilaa milq baa la xasuuqay ilaa hadda la leeyahay baxaatiin oo kaara la marinaya marka Soomaalida Ethiopia no waa soo dalay intaan u nikin karno wayna naga diideen nikada ma rabnay nikadeen sakay naga qabsadeen uuf bayna dheen ya marka alxamdulillah markuu khayraadka aniga soo baxay xogna kuma haysan karaan waxa weeyaan adduunyada wax isku geeyeen waxay ku hayeen shidaalka anaga laakiin alxamdulillah rag ugu horeeya baaqaro waa naqana afar wiil oo gasho sida loo galo ya afar wiil oo gasho oo qaabkii u gasho waa la yaqaanaa marka afarta wiil oo gasho wallahi way fadhi karin waa adduunka saas ku rugsaa dhinaca kale ya kii soo baxay xabada futada laga geliyo ona laf baa u joogto kii carab ah futada ya afar wiil oo naftood horoyaale oo waxaan ognahay intay isku rareen ya marka adeer wadanku halgan baa loo baahan yahay qurbaha laga soo tago Facebook wax ma taray أنا هذا بلدم بيوارك ترى أنا فيسبوك هذا فلوي بان هاي أنا أخذ الدكتور يجيني مالها كل إنسان وكل يجي مالها نعناع كنا هذا الله بهنا هلا تقول لولك هلا تقول قبل كوا قاعدين هلا تقول دولة قاعدين هلا عاوية يا رجعوا بانتا ورجع هذا القربان شو ما خم كشوكنا 1 مليون بكشوكنا ورجع بركة وين أنتقنا لولك الصاحب يا وأنا نقاميها عرفتها دير أنا دفعنا CMC عبد الجنة حفظ الله واحد يشيء نكى صور على يوتيوب يعني أورما مرة يوتيوب نكى كلا قاعدة نكى ما طلبك يا أورما نصور تنرفع بينه حروب ما ويوتيوب يوتيوبيا وأنا صورتي وحويان رج سوماليا صور رج سوماليا قاربة لأن حكومتنا قعنت كويسة الشيء يا مو هو بارجع لكن قعنت كويسة رج ما وذا رج بلالاي ولا ليه دكي هلقة كجلير هلقة بلو بهاي شرال كيني ما أنتوا حل سكوب جدي إذا كوا أود قدنا إثيوبيا تبرتوا مركا نكى لوف كوي يمد بجارد ولا بس صح يا هل كائنا يا وادو بدين دجالكي مدحويني الله يرحمه عبد الله يوسف إثيوبيا مركي كلا سوماليا ويليش الصومالي ده كهر ماذا محكيم تاع يا أحمر هذا سيد ما عقلوا وصارين وشيل من مركي إسكعلم وايو والله إثيوبيا
ayaa waxaa caawinay maraykanka ayaa kasoo duqeynaya badda sun baa lagu leelayay laakiin wiilasha gees soomaalida waa geesiyaal ma cabsadaan rag cabsada maaha etoobiyana weyna yaqaanaan marka etoobiya damboon u dhigana cabdi maxamed cumarow maanta waanu ku jecelnahay yaana maqlin soomaalida ismaamulka soomaalida iyo etoobiya nacnac dambe ma jirto waa gobolkaa ogaareen waan xorowna dadkaada wuu ku taageeray dhulkaada waa la haystaa ya dhulkaada shidaalkii iyo idmadii etoobiya oo dhan waan la soconaa awoodoodii waa meesha la iskugu geeyay ya marka inaan anagu khayraadka anaga intii la haysto jigjiga aan ka dhahna ismaamulka soomaaliya etoobiya ma soconayso shidaalka waa la haystaa ku dhawaaq ina la qabsaday ku dhawaaq oonu difaacano dhulkeena taasaan u baahnay aniga uma baahni yaa maxaa la isku qarinaya waa dhulkeeni nabaad guurka ka dhacay kaaraha sugurguuranayo bm-ka madaafiicda ya wax socdo waa lala yaabaya shidaalkii meel kale istaagaan laay marka shanba sabti baa lahade waxa uu ku ogolyahay mala waaba la qabsaday shidaalkeena waa la haystaa marka waa aad noo maqashiin laadeen maxaad u aaminsantiin ya toos baa laigu soo tabiyay aniga warkas adduunka ilaahay waxaa weeye xataa wax naloo ogolyahay ma jiro maanta dhibic ya 1% dhulka ya shidaalkeena waa la qabsaday walaalayaal ka kaca ka taga dibadda aanu ka imaado South Africa Kenya xeryaha Dadaab Jubbaland meel kasta oo joogtaan dadka u dhashay gobolka Ogaadeen hala soo xaroodo walaalayaal hala soo xaroodo anaga isjaajuusayna anaga isgubaadayna way dhamaatay way israacday adeer way israacday waa ishidaalka laga kiciya cadawga waa ishidaalkeena laga kiciya yaa nalagu madadaalin jigjigiyo yaa nalagu madadaalin shidaalkeena waa in laga kiciya cadawga dhulku waa la qabsaday shidaalka waa la qabsaday halgan baan u baahannahay halgan adag in la galo walaalayaal fadhiga ka kaca waxaan leeyahay xabadda ku socoto shacabka reer Ogaadeenaya ee tulu guuleed iyo agaarkeedana ma aqaano waxa loo gali leeyahay marka walaalayaal insha Allah waxaan leeyahay waan xorowdi doonaa fadhiga laga kaco marka walaalayaal soo dhawaada qabiil waxa waa laga tagay reer hebel iyo anigu uma bixin gobolka Ogaadeen uma bixinaanay ilaahay baa u bixiyay iyo dadkii caalamka wadankan haystay Ingiriis baa haystay ilaahay ka soo dhulkan Mareykanka Australiaanka waxa iskala qaybiyay waa Ingiriis runta idin sheegay caalamka haystay marka dadkaas soo baxsaday anigu ma bixin kilka Soomaalida Ethiopia saameeyeen anaga iyo Oromo isku mid noqonay maanta laakiin gobolka Ogaadeen markii loo waa gobol taariikh leh waa gobol adduunka taariikh geeska Afrika iyo geeska caalamka ku leh waa gobol halgamayaal caan ay ka dhasheen sida Maxamed Cabdulla Xasan Axmed Gurey ya rageesiyaal ay ka dhasheen marka in maanta oo dhan aan ku helno ismaamulka Soomaaliya Ethiopia maxaa nooga dambeeyay Soomaaliya Ethiopia in guryaheena inta lagu soo weeraro kaarana la mariyay tank ya ayadoona dawlad shisheeye nagu soo duulin ma dawlad shisheeye jigjiga ku soo duushay ya wax hantida jigjiga maxaa iga galay tankiga ya shacabka jigjiga maxaa iga galay nig ya warada Ethiopia wax la ma jiro Ethiopia waan guuleysanay waan xorownay hogaamiyaha aragtida dheer CMC wada ogtihiin Ethiopia meel buu ku xiraya aan taageerno Ethiopia ninka meel buu saaraya waan ku kalsoonay shidaalka waan ku kalsoonay waan libax asaga na dagaal gelinaya marka soo la soo qabanaya cid kasta oo rabto inay fikirkeeda ka dhiibto halka السلام عليكم. عليكم السلام سودو بقرنت سودو وأبو سلامي
andhawahay abaqarahuna waan kaa qaaday xaaladda ka waran caafimaadkaaga jawiga maxaa la hayaa والله الحمد لله وقبله ولشي شهيدي أسقر بالله سمعي والله عاصي maasha allah بركة لكن أودي ومتر بالله إذا ماذا إثيوبيا وحي جاي شدال كاني بقى وحي جاي وحي هب استنا ربي سكون جاي عيدا haye بركة goormay isugu geeyeen anu waxaa maba maqale بسم الله الرحمن وحي مالتي دجالك نقص قال مالتي كورسي يا عيدك وحق بدنا تشيكا مريبا نقول يا دار وصعد عيد ويديسي يعلا هذا الشيء ملح walaala dadku way hurdeen horta kowdhe صح habeennimayna ciidanku markaa meesha soo galeen صح subaxiina waa kii lagu toosay un madaxtooyada iyo baarlamaanka iyagoo kala xidhay ما يتن ورر كما تكلا شدال كان dee ma habeenkaasay guurayaan ee markaa waddada mareen maalintii ka horreysay dhalinyaradii iyo dadkii oo dhan dib baan u wacay taleefon bay leedahay deegaanka ma lahan internet taleefonka markaa waxaan ku dhahnay war ma ciidan baa darrad maray haa ciidan aan ka yaabnay baa maray baan haye markii la raadiyene magaalo loo dhiibane shidaalka bay tageen maya waynu kasoo didinaynaa walaalo maya waa la ogyahay taa waa soomaali baan mayaga fadhi kara meesha walaalo horta maxaa ii muhiima aniga inay dadkaygu xuruubaan ma garanaysaa صح waxaa weeyaan horta guul iyo gobonimo صح shidaalkaygana walla inayna xabad ka dhadhaminayn baan kunintay gabadh foodla inaga nooshaada niman baabad ka hadlaysaay صح dhagax baanu kaga saari dhagax shahiid yaa muslimiin صح soomaali weyn oo dhan baana noo hiilin insha allah صح saacadda qabiilka iyo qurunka iyo waxaa dee inta bugtee ku wareegeysanaysa mooyaane inta soomaali caafimaadka qaba maanta maaha maalintii layskala midabta kooraya because axmaar oo dhan mid baa anaga noo yahay maanta صح soomaali oo dhan waxaa le inta dhiiggele inaad mid noqotin allah idinka dhigo صح آمين cadowgaas awalna xoogga idinku haystay maantana hantidiinii iyo shicibkiinii iyo dadkiinii baabiinaya ilaahay waxaan kuli isooga soo qaban lahaydeen ee waxaan kuli ugu dhibta yar ilaahay hayna badbaadiyo hayna tuso آمين soomaalina waxaan leeyahay meel walboo joogtiin gacmaha isqabsada cadowga mid haanu noqono aanu walaalowno soomaalinimo iyo walaaltinimo iyo wada dhalashada meel walboo joogtiin idinkoo muujinaya صح marka walaalo insha allah waan ka guuleysan doonaa aniga saan filayo axmaara iyo maaragtay iyo oromaba waa ka guulaysanay maanta Addis Ababa iyo shalay ruux kastoo qaraabo joogta waco banaanka bay u bixi laayeen oromadii saafad bay wadataa meelay u socoto kaalay ark waa cawaan iska kacsan marka Ethiopia dhan baa burburtay washidaal bay ku dagaalami karaan dad leeyihiin una shidaalkana awooyadaabaa u dhintay baaqorow kowdhe صح kaabilaa kaawo waxaan ilaashanayna wax kala maana macdanta dhulkayga ku jirto un baa loo dhimanayay صح magacii la isugu bixbixinayay la صح isku soo xidhayay la isku soo dilayay ma fahanti صح xornimadayadiina maanta un bay noogu dhowdahay oo daba dhilif iyo gaal dhaaxaanu soo ahaynay maanta un baanu ugu dhownahay ma garat inaanu ka xorowno gumaysiga madow صح marka ama ha guuraan ama yina guurin abba waxaan leeyahay gumays ninkii dhoof ku yimid bay geeridu dhibaysaa ma garat صح waqtigii dhaqaaqiyo waxaan ku waa la xoroobi ma garat walaalo صح abasiin iyo meeluhu ka yimid mar wuu ku noqon axmaarku صح marka waxaan leeyahay horta oon u mahad celinayaa madaxweynaheena sharafta leh cabdi janno sida sharafta leh uu mar walba qadiyadiisa ugu taagan yahay isaga xataa intaasoo helicopter bay mar walba ugu soo degayaan ugu imanayaan waxaan saxeex waxaan sameeye kan samee mar walba wuxuuna diidan yahay uu yiri mid aan saxeexayo iyo midaan idinla hadlayaa midna ma jirto mar walba ku adkaysanayaan صح 5 minutes bay helicopter ugu imanayaan jigjiga airportka dhexdiisa ma garatay صح abaaqoro may maqlaysaa walaalo ها marka kartidiisuuna isku difaacaya ayuu u diidan yahay inuu iyaga la hadliyo inuu warqada saxeexiyo inuu
la sheekaysta toona ma garatay kii ugu dambeeyay hadda wuxuu ku yidhi kulamana hadlayo kuumana imanayo shaqana kugu meli waxay kaa badin weyda samee buu ku yidhahdeen صح marka ilaahay horta isagana ha xafido shicibkiisiibuu maanta hadduu dhintana uu heliyaho uu garab taagan yahay inuu la dhintana uu jecel yahay cabdi maxamuud cumar ma garanaysaa walaalo صح qorigiisiibuu qaatay shicibkiisiibuu kamid yahay wallahi waxaa lagu leeyahay askartii iyo isagii maba kala garanaysid baa lagu dharka ciidanku xidhan yahay ma fahanta madaxweynaheeni صح marka anigu waan ku faraxsanahay sida sharafta leh uu maanta qadiyadiisa u muujinayo inuunan uu karaa cabdi maxamuud cumar inuu maanta cadow faraha cadowga inooga geliyo kolba u yeedhanayo daqiiqad walba صح marka walaalayaal walaasha wuu ka go'ay ma garatay baaqorno صح markaa huuno geesi dhalay baan ku yidhi cabdi maxamuud cumar waxaan leeyahay geeridaa been jiro joog aabbo waddankana adaan kuu dooranay haddaanu nahay soomaalida kasoo jeeda gobolka ogaadeeniya haa weligaaba adaanna haysanaya adaan kuu dooranay afhayeenkii onalif baa xataa kuugu hambaliyeeya oo ku yidhi maanta unbuu cabdi maxamuud cumar bereserentii hor lanoo noqday yidhi ma garat صح aabba jiroo joog baan ku leeyahay ilaahay baa ina arka dulmi bay wadaan gaaladaasi iyo inta dulmiga la wadaba shahiid yaa muslimiin baynu leenahay oon ku dhimanaynaa waa xaqeeni oon u dagaalamayna waana ka guulaysanaynaa إن شاء الله ولا خير الله xorinimadana walaalo uu ku dhawaaqay madaxweynaheenuna wax yar baa inooga hadhay waan sugi doonaa dadkii oo dhan baa wada sugaya waa loo heelan yahay cabdi maxamuud cumar garabkiisa allaha galo ciidamadeena qalabka sida ee new booliskana garabkooda allaha galo jabhadda xoreynta ee wadaniga ogaadeeniyana garabkooda allaha galo dhammaan soomaali weyn oo dhan guul iyo gobonimaan leeyahay adeer waan guulaysanay abasiiniya iyo gumaysigina ilaahay baa naga kori nagana dulqaadi soomaalina waxaan ku uri guul baanu leenahay xataa waxaan ku uri waxaa noo soo hiiliyey oo noo hiilinay oo soomaalinimo noogu hiiliyey farmaajo isagana guul baan leeyahay waanu hambalyeynayaa sida hiil iyo hoodale uu noola soo garab istaagay uu abi intuu wacay uu ugu yidhi helikabtaradan iyo waxaana soo diriyo cunaqabateynta haddaad deen weyda buu ku yidhi farmaajona intaas 38 helikabtar baan kuu soo dirayaa buu ku yidhi wallahi صح dagaalkana haddaanu soo galaynaa buu ku yidhi annagii oo diyaaradaha annagii hubka iyagii wadana marka soomaali waa israacday hiil iyo hoob waana la garab taagan yahay guul ogaadeen iyo guul iyo gobonimo ما شاء الله aad baa umahsantaha walaal waxaa weeye gubaabada iyo xogta ay sidaa la siisay aad baa umahsantahay wadaniyad baa tahay khayr baa ku rajaynaya assalaamu calaykum adigaa mudan walaalo waan idin salaamay xabsaan salaamayaa uweys baan salaamayaa dhammaantiin inta samaha jecel reer ogaadeeniya oo dhan baan salaamayaa booliska waxaan leeyahay allaha kor ka yeelo kor ciidamada new booliska ee qalabka noo sida iyaga iyo kuwa jowxaba guul baan leenahay adeer danta jowxa dhaafsan baan leenahay daaflaa gumaysiga waan diidnay aad baa kuu salaamay أول شيء حصل سودو لمان الجماعة أول شيء حصل سودو الجماعة أول شيء حصل أفعيانك ما دام إنترنت جرين وحول نقضي أول شيء حصل وحول نقضي أفعيانك حكومة قبلك أوغارين وهجاميو مدحوين عبد محمد عمر CMC عبد الشرنا حفظ الله سودو أويس بقرو وانكو سلامي subax wanaagsan aroor wanaagsan gobonimo wanaagsan guul wanaagsan aad baan ku salaamayaa jeegna waa ka qaaday soo dhow waxa weeyaan aniga aad u gelin wayso intaada gelin warbixin badan baa kaaga baahannahay maadaama dawladda aad ku xirantahay wax warbixin badan baa kaaga baahannahay wixii u dambeeyay marka soo dhow aad baa maasantahay abaqorow xalay ilaa habeen hore waan soo jeednay aniga adigu saacad baan seexanay
daqiiqadna wadka iyo mataqaanaa xaaladda waan ula soconay warkii ugu dambeeyey xaaladdu caadi bay noqotay ciidankii habeen hore aan sheegaynay ee mataqaanaa herar iyo xagga ka soo kacay ciidankii bartoodii baa la filayaa saaka inay mataqaanaa ku noqdaan dir dhaway shalay arrimo ka dhaceen xaaladeeduna hadda way degan tahay caasimadii xaaladeedu way degan tahay waxa weeyaan maanta shacabkii iyo liib booliskii iyo mas-uuliyiintii iyo madaxweynihii oo gacanta is haysta way taladooda ku jirtaa gacanta iyaga maanta u awood sarreeya fartay doonaan bay qorayaan wax walba waa dhagdhag weeyaan marka xaaladdu waa saas waxaan rabaa wax yar meediyaha ku jira oo dad wax magarataa ay sheegayaan oo brobogan ah inaan kaga faa'iidaysto inaan ka beeniyo halkan oo le mataqaanaa waa la casilay oo cid kale loo dhiibay warka waxba kama jiraan waxa weeyaan anaa saacad kasta iyo daqiiqad kasta adna aad ogtahay inaan la hadlayno waxa weeyaan wax ka jira arrinkaa ma jiro dad mara habaabinaya meediyaha soo qoriya marka xaaladaas ma jirto yaan dheg loo dhigin barbogaanka iyo meediyaha wareeray marka abaaqaro xaaladda halkaasay maraysaa wax walba way degan yihiin dee waxaa la yidhi nin aan shantaadu kaa celinin sharci kaama celiyo shan baan iskaga celinay nimankii weerarka soo qaaday way isku dayeen haddana mar labaad helikabtarre isku dayeen ciidamo kale inay soo geliyaan isku dayeen waxa ay ka baqeen wixii wax ka weyn in mataqaana oo meesha ka dhaco cabdi maxamed cumar shalay isaga magaalada dhex wareegayay liyu boolisna ma waardiinna shacabkii baa maartay ammaankiisii sugay liyu boolisna waxaa la yidhi furinta gala ninkana annaka noo dhaafo marka xaaladdu halkaasay maraysaa maasha allah war farxad leh awey sheekh xasan maxaa ka jiro ciidamo aad u xoog badan baa jigjiga ka gudbay oo shidaalkeennii tagay ciidamadii habeen hore bay ahaayeen aan sheegaynay ee lahaa herar bay kasoo baxeen waxay damceen mataqaanaa inay magaalada dhex maraan laakiin qorshoodu inay xagga shidaalka u gudbaan ma ahayn waxay dhaheen maadaama liyu booliskii uu xadkii noo soo baneeyey waxaan ka baqaynaa dee in halkaa mataqaanaa ay carqalad nagaga soo timaado hawshiina waa laga fahmay iyaga qorshe kaley lahaayeen صح أوش أحسن وحكى قاي قد كا مركا والله ما سيهاي وذاك إنسان بنتي بروباغندا مالك استلا وضع الناس سوماليا أو مانتا عبد محمد عمر نعد مجر dad xanuunsan baa jiro ruux xanuunsan wax dhib uu samayn karaa ma lahan propaganda machine annagaana laga bartay hadduu wax taraya ya marka walaalayaal hogaamiyaheena aragtida dheer CMC dadkii ila yaabi jiray warninkan maxaa ku daba dhigay dee maanaa kaara isku dhigay gabdhihii baa kaara isku dhigay maxaa iskugu dhigeen oo ku shahideen waa wanaagga uu ka samaystay waa geesi karti leh for my life baan aniga urur taagay waa الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أويس واقف سلامي مركو ورسام سلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسؤول سعيد ورن. وخير الحمد لله. كمار لديك عمرة سكري.
Oran hurdaaye waan jiifaya waa alla ii warramo maxaa la waayo wanaag waa maxaa ku soo salaam kordhisay ka wallahi waxaan wanaag ka ma soo kordhin deegaankeenu maanta ugu fiican yahay dee kolley alxamdulilah rag baa iyo gabdhaha keenay guusha oo u shahiiday maasha allah marka alxamdulilah waa shidanahay waa waa si wanaagsan marka Ethiopia waa si ayadaa wanaagsan baryotamaysa alxamdulilah ilaahay maanta ka dhamaan صح marka ciidamada oromo Liverpool talo iskida maxaa sii qorsho waa oromo ciidan noqono way kaasana looga baqay ciidankaasana looga baqay iyo shacabka gacmaha isqabsaday صح wallahi waa guul aad u weyn oo inoo soo hoyatay aad baan u soo dhaweynayaa uguna faraxsanahay maasha allah baan leeyahay hogaanka aragtida dheer madaxweyne doctor CMC waxaan leeyahay long life aad baan u taageersanahay dhammaantayo haddaan nahay shacabkii deegaanka dhalinyaradii ciidamadii liyu booliska ciidamadeenii kale ee wiilasheenii kale oo nalaf dhammaan waa la wada taageersan yahay heegan baa loo wada yahay waxaan leenahay mas-uul halkaad haysatid iyo sidaad danteena u aragtid maanta inoo jexee adaanu ku taabacsannahay maasha allah waa hadal fiican Soomaali shanta Soomaali qaybo badan baa nalaga taageeray sida Soomaali weyn Muqdisho oo kale Puntland wakaas Soomaali oo dhan baa ya hiil iyo hoob ay nala garab taaganahay leh alxamdulilah marka Ethiopia ayadaa maanta baryotamayso madaxweynaheena intaas oo helicopter bay maatay lala heshii mayu yiri heshiis wax la ma jiro waa si wanaagsan uu ku saxsan yahay aragtidayda waayo ninkii dee maanta adoo heshiis la ahaa oo ilaalinayay dastuurka dalka u yaala iyo sharciga waddanka ninkii maanta isku dayay inuu maaragtay xoog ugu muuquuniyo berri kuu teel la dhigan maayo haddii uu awood kasii badan uu kuu helo marka maanta chance weyn ayaan haysanaa laba qodob labadaba aynu kaga faa'iidaysan karno ani aragti ahaantayda waa qodobka koowaad ee inaan Ethiopia waa ka go'no oo dawlad gaara noqono oo iskeedu madax bannaan iyo in aynu heshiis iyo wada fadhi la yeesho waxaan uu kan ra'iisul wasaare ku hadaaqayo waxaan wadaa waa hadaaqe aan meel iska saarno oo Ethiopian caadi oo sax oo muwaadiniina deegaankooda iyo shacabkoodana u madax bannaan oo khayraadka deegaankooda looga dambeeyo loo daba fadhiyo aynu noqono صح labada qodobba maanta waynu uga faa'iidaysan karnaa chance weyn baynu haysanaa alxamdulilah madaxweyne daacadaynu haysanaa ciidamo heegana oo daacada oo geesiyaala masuujiisadayaala liu bolis fifa ayaan leeyahay habti ما شاء الله ما شاء الله وحاول قلتي قبل شعب كم حد ريوغادين يا أما صومال قلبي كلها ترى العين في عني واقع shacabka waxaan هدو shacabka waxaan kula talin lahaa horta kow in lagu dadaalo midnimo inta yar aragtida صح kala haysata ama dibadiid ha sheegtaan ama wax kale ha sheegtaan oromo daba dhilifka oo siraaj maamulo ninka siraaj la yiraahdo raggan daba socda inaan warkooda dheg loo jalaq loo siin la midoobo lana taageero la garab istaago madaxweynaheena iyo ciidankeena gaarka ah ee liu bolis iyo onalif labadaba onalifna waxaan leeyahay adeerayaal walaalayaal maanta waa maalintii loo baahnaa midnimo iyo in laisku tiirsado haddii la kala tago tafaraaruq waa laynagaga guulaysanayaa haddaynu laakiin midowno oo hal mowqif yeelano innaga ayaa guusha qaadaynaa
صح marka Soomaalidu waxay tiraahdaa ama buurahow ama buur ku tiirsanow maanta haddaynu midowno buur baynu noqonaynaa oo alla yaqaanaa raggeena صح Soomaali galbeed ogaadeenaya inay masoo jeesadayaal yihiin صح kaliya waxaa laynagaga faa'iidaysan jiray Ethiopia ay noo haysatay ama ay nooga adkayd kala qaybsanaanta ayuu ahaa قيبي حكم shacabkeena qaybi oo xukun bay ahayd laakiin maanta shacabkeena iyo mas'uuliyiinta deegaankaba waxaan leeyahay aynu midowno hal mid noqono inagoo hal mowqif wadana aynu dhan usii wada jeedsano صح marka intaas aan kusoo gabagabeynayaa dhammaan qaybgalayaasha xoog baan u salaamayaa adigana mas-uul xoog baan kuu salaamayaa waxaan ku leeyahay dadaalka aad wadid iyo abaabulka halkaa ka sii wad guul iyo gobonimo insha allah قول يا قوني وقاعدين يو حرودي الحمد لله إلهي ما محطة له وقام يعرف تدير بونسي سي ام سي ولا له الصوماليات وين ما عرفت عود كود وين موتشين واحد بعته أرب حم أنا ما بربينا كلا قاعد أرما أنت كورة جسرين ولي أنا أوني كنار من إثيوبيا إثيوبيا حم إنا حد كنتان كحرنا ضدك ولا له هنا الصومالي ده وعي القضاء كدي في عنا الشباب يقرن وحكستو وأنا عبدي يريد أوضة وقاعد وحكست أنا جاي يسد وحنور من أيها هفقتان مركا آد وحوصل وين يا صومالي وين أنت شرفت له يا كرامة نو تعسيسي ولا لماذا نو موتشي يا waxa weeyaan Ethiopia suu ilaahay nooga adeegahay baan ooga adagnahay waan isnaqaanaa ururka ONLF kaliya iska celin waayeen halgabayaasha ONLF annagina kala qaybiyeen qaybiyo xukun laakiin maanta waan israacnay ururka ONLF wuxuu sugayeen ilaahu shacabkayga midoobaa iyo taagnaayeen maanta ciidan awood badan hogaamiye aragti dheer baa idin taageeray oo idin soo dhaweeyay oo kaalay shiraaleysta dhulka idin kala waa idin ku sibeeyay laha halkankiina wuu bilowday xabadeena way bilaabatay hogaamiyihiina wuu diiday inuu Ethiopia la heshiiyo waxa sugtaan ma garaneen waa in ciidamadiina ee afarta jaha ka imaadaan waa in horta aan la tustaan ciidamada ONLF iyo ciidamada New oo dhaanto wada tumanay hilib geel wada cunay wali aanu qanda ay hayso wali waa xumadeysana marka maalinta xumada ay ka casaan waa maalintan aan arko wiilasha ONLF iyo wiilasha New Police ee Ethiopia ayada guuri alla og bay xataa harar deganaaneen marka xuduudeena waa bardooda waa shaqteeda oromada ilaahay ka sokow ana iska lahaa madaxweynihii siyaad barra Allah uu xariistay halyeegi Soomaali ee ka shalays xalay waxa ka helay wiil isaaq oo habar jecel oo yiri aqligi siyaad barra lagu kacay waxa la ceersay daaqligii iyo geesinimadii iyo wadanimadii ba la tagbiray dee orday qabrigiisa ka raaday marka waa runtii haliyay waxa Ethiopia qurna ma hawaysan jirin marka maantana inaga kala qaybsanay qayb iyo xukun alxamdulillah maanta waan israacnay suu ilaahay nooga adeegayaa Ethiopia uga adagnahay walaalayaal waxaan laga ilaaliyo ismaamulka Soomaalida Ethiopia oo dambe waxaan laga ilaaliyo yani ka dambe Ethiopia oo ninkana laga ilaaliyo kala qaybin bay noqonaysaa ONLF way ogolaatay xukuumaddan iyo hogaamiyaha aragtida dheer CMC Cabdi Janna xafidullah geesinimada muujisay ku soco shacabkaada ku jecel neeba in Ethiopia dambe intaad lagu qasabtid inaad xabad dambe aan ku ridno ONLF waa inaad xabadda tuutaha aad qabtid maanta waad aragtay Ethiopia way ku ciishay laakiin ciilkii waxa ka saaray shacabkaadi ya buurbaad ka dhalatay Soomaali waa ka dhalatay Soomaali waa walaalo qabyaalada waxba tareeso Soomaali baad ka dhalatay Soomaalina way ku taageertay waxa sugtaaba aruma garanay waa inaan bardooda xuduudda bardooda hawaashagteeda way insha Allah inta aan shilaaleysanayna xuduudan aan xirano de markaan shilaaleysanno oo
caalamkana nalaga aqoonsanaado waan goonay oo hub gadano waa inaan bardood iyo hawaash tagnaa insha allah waxaan leeyahay walaalayaal dadku waa la soo qabanayaa fikirka gacmaha la soo taagto adduunka ilaahay etoobiyada anigu etoobiya horta etoobiya fiican ba weliga ma arkin ayagoo wada af uraya na tuugsado un baan arki jirnay markaan ani barsiisidna sujuudo dhahay aga war ilaahay u sujuuda war waa maxay halkii bir wuxuu ii keenay awowiyada anagoo dhaho dambigu ii keenay ya ilaahay baa igu og aabahii baa maalin yiri gaal war sii buu yiri birkan markaas saas inaba sujuuda war ka soconi laa ilaa war dambigu riyaalka noo geystay bir waa rintii marka dadka wax ma wada qaybsan karno wax ma wada noqon karno walaalayaal cabdi maxamed cumar uu sameeyey caalamkuu tusay wanaag in etoobiyaanimada haddii xuquuqda aniga aan ku heleyno inuu etoobiyaanimada uu lambar one ka noqdo etoobiya wax nabad dhalin weysay buu nabad dhaliyey maanta sababiyo dhulka may deganaadeen waxay ku deganaayeen waa annaga way arki doonaan nabadda innaga aan ka dhalin hadday wax qabsan karaan maanta ha qabsadaan waa la arki etoobiya wax looga jiro nacalla meesha ka imaatay ku yaal qurunka laan jirin oo urayo waxna nagama dhexeeyo hogaamiyahanaga c m c baanu taageersannahay insha allah isagana waxaan ku sugaynaa inuu dhaho waan goonay ogaadeen iyo waa xorooday waxayna leeyahay walaalayaal dee gacmaha soo taagtaag oo marka waxa weeyaan walaalayaal madaxweynehena tuutu qabaa dharka liyuuga jigjigu iska dhex marayaa isaga iyo shacabkiisiyo garbahays haysto waa wax lagu farxo farxada weeyaan alxamdulilah geesi dhalay helicopter maanta kolba etoobiya ma diyaaradii waxay saarnaan kaare alxamdulilah kuwa siyaasadoodii fahmay iyo dagaalkoodii waa annaga ya waa dowlad deegaanka kuwii sida loo cuno hilbahooda yaqaanayna waa onelef labadii baa midowday allah axbaara maxay jabtay allah axbaara maxay jabtay etoobiya maxay jabtay aqal xumadiisa waa maanta etoobiyana aqal lahayn shidaal baa la soo saaray meel oliga ka jira dagaal looma ogola caalamka bay xabad ka bilaabeen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلو. ولا العاد بانكو سلامة أذيك يا داود يا شا ولا العاد بانكو سلامي مشاهد عاد بانكو سلامي بعد السلام هذا نيو فكر كي كسوق قد بستو وقاعدين يا أما الدولة ديجان كأما الصومالي ذا قلب بيت با waxa idinta faraaruqiyay kala tagsanaan dhankiina Ethiopia waligiin baad ka adkeedeen dowlad deegaanka shacabka dowlad deegaanka iyo liyu booliska iyo walaalka qadka ka xun waa nin adag weeyaan tala fiican buu nasiin lahaa arka inaan ku celinay noqonaysa marka waad
marka walaalayaal waxa weeyaan axmed waa soo qabtay nin adag buu ahaa maanta soomaali baana taageersan innagii baa istaageernay soo dhowow يا ولد wuu kaa go-ay walaal waa kugu socdiyey ولا ودوه هل ما يمدع عدكيغي si fiican ma maqlaan waxaan soo gudbinayaa war hala midoobo baan soo gudbinayaa hala midoobo saasan walaal soo gudbinaya aad baan idin salaamaya walaal ay sidoo kale walaal marka walaal muhiimka waxaa weeyaan walaalayaal muhiimka waxaa weeyaan waa midnimada qayb iyo xukun inaan iska ilaalino Ethiopia waxay ugu haysatay qayb iyo xukun laakiin maanta waa la israacay insha Allah caalamka marka adduunka waxa u darnaa halyeeyii geeska Afrika al-Sayyid Maxamed Cabdillah Xasan korkiisa laga taagay calankii Soomaaliya calankii oo neefta Ethiopia markaas ay qalqashay kuwii joogay waxa taa عوضي أو مالك بحال وهن يا لو بهاي وهن لو برمانت كم حالي ماشي أو الكريه أركع وأنت وحويان شدال بان هسنا غيرات بان هسنا هرمر بان هسنا وجميع ركتدار بان هسنا إذا عود بدن بان هسنا شعب شرف يا كرامي أود يجيسنا ما له هالسنة وحن إثيوبيا وغسل ماذا أحنا ما قرني يعني أنا ما قرني نعم يا ركا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو كوسر سودو مركب ولا لي الواحد ويا إلا وحنا نحن هي كونفور قلبات إلا تشوبلان Soomaali oo dhan baa kacday oo ka xumaatay dulmiga iyo kibirka taliska wareersan ee Ethiopia marka niyo aragtida dheer CMC Cabdi Janno waxaan ka sugeynaa inuu mataqaanaa geesinimadiisa uu Ilaahay siiyey kartidiisa aqoontiisa uu Ilaahay siiyey inuu ugu shaqeeyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan meel kasta joogaan gaar ahaan shacabka reer Ogaadeen in Soomaali la soo dhaweeyo in Soomaali loola dhaqmo si wanaagsan wanaag bayna tuseen way jiraan kuwa si qaldan u hadlay laakiin qabaayil ma dhihi karno laakiin maamulka Somaliland oo kala siila maxal dhahaa odaygii oo nagu ballan furay Sacad Muuse asagoo la awoowida anaga ka adkaadaan shirkiisa iyo fadhiyeen madaxda dowladda deegaanka Soomaalida markii la soo dooranayay waa kii Cabdi Maxamed Cumar hogaamiyaha aragtida dheer soo maray oo ay taageerayeen waa kii dhinac walba ka wada hadleen maanta wuxuu yiri xuduudda ka xiranayna shacabka Somaliland Ethiopia hay ilaaliso war Ethiopia waa kuwa Ethiopia laha annaga haddaad wanaag naga samaysan maxaa sharaf maxaad haysataa waxaad haysatid malaha anuu shidaal baan haystaa khayraad baan leeyahay xoolahiyo ka xirtaa kugu filan ya wax aad haysatid malaha ya dadkaada baa kala qaybisay ya oo garxajis amaryonis baad yaa dhulka la dhacday oo dhulka wadanka ka saartay dadkaada midee horta oo qabaayilka iska dhaf annagu waa isku filanna taa kaan leenahay dhinaca anagu ma soo tilaabsan kartid ya Soomaalinimada ilaali iimaanka alla ka qaadi Ethiopia annaga u neekanay way wax lagu fari weys adoo waxba kugu haysan waxba kugu falayn ya neecid aad u dhahdo waxba kuma aragto annaga walaalaha ee Soomaaliyeedna taageer oday nacasa taageer qawaare warka walaalayaal waxaan leeyahay Soomaali guul iyo gobonnimo leeyahay guul iyo gobonnimo walaalahan baatiin wayda jecel lahay waxa weeyaan
annaga idinka filan kuwan codkiina lagu taageera baasha markay dhacdane waxa noo tari kartaa noo tara annagaa ka adag ilaahay suu noo uumay wayna kala qaybiyeen moogaya maanta waad ogeedeen wiilasha onelef etoobiya ayadoo wax ay qabatala ya annaga dhexda anaga baa hilfaha isku qaadna marka maanta waan is wadanaa insha allah isku kaana daawada diiradda annagaa naqaana etoobiya nacas baa hadlaya nacaskiina balog baa ku qabtay waraanuba taageera kaaga baaraanaa isku filan soomaalida nasabka ee sharafta leh baa la hadlayaa garaca dhale marka walaalayaal waxaa idin leeyahay anagu ilaahay wuxuu naga dhaliyey soomaalina dadka ugu fiican ee ugu sharafta badan waa la yaqaanaa marka insha allah waan xorownay maanta o dhan baa ku jiray wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu